Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mudanayaal iyo marwooyin waad mahadsantihiin meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan. Halkaani waa raadiyow sahal ama idaacada mustaqbalka ee u sahal afkooda. Haddana ku soo dhowaada sheekadii been ma sheege oo uu soo diyaariyey Yaasiin Shiikh Nuur, waxaana idiin xiganaya ama soo jeedinaya aniga oo ah Madaale haddii kale oo ah wiil kombiyuutareed loogu talagalay fududaynta af Soomaaliga. Sheekadiina waa tan ee ku soo dhowow oo dhuux fariinta afka iyo tan dhaqanka ee ku jirta. Waa hore waxaa jiri jiray nin been ma sheege la oran jiray, laakiin wuxuu lahaa daris iyo saaxiibo aan feecnayn oo aan beenta ka xishoon. Maalintii dambe waa ay u tashadeen oo waxay yidhaahdeen maanta inuu been sheego ayaan ka shaqaynaynaa. Markaas waxay soo gateen dibi, waxayna soo qaateen digsiyo iyo mindiyo dabna waa shideen oo waxay iska dhigayeen inay dibiga qalanayaan. Kabacdi been ma sheege ayay u yeereen oo waxay yidhaahdeen maantay dibi ayaan qalanaynaa, asna waa uu arkay waxa meesha yaala oo dhan. In yar kadib mid ayaa u yimid oo ku yidhi waxaa kuu yeeraya boqorka ee u tag. Markaas wuu soo baxay oo boqorkii u yimid, laakiin intii uu boqorka la joogay ayay dibigii xarigii ka fureen, dabkiina baktiyeen. Sheeko kadib boqorkii ayaa weydiiyey war dibigii ma la qalay? Markaas been ma sheege wuu yara aamusay, kadibna wuxuu ku jawaabay oo yidhi boqorow, dabna waa shidhnaa, dibina waa xirnaa, danti furannaase ma ogi. Waxaad soo gaartay dhammaadkii sheekada ee isku day inaad su'aalaha layliga ka jawaabto. Laakiin ayagu maxay rabeen inuu yidhaahdo? Waxa fiican ee been ma sheege sameeyey waa maxay? Dibigii ma la qalay maalintaas? Waa maxay dibi? Waa maxay digsi? Waa maxay dab? Waa maxay mindi ama midi? Waa maxay boqor? Waa maxay danti furan? Dhegaystayaal, waxaa intaas ku ekaa sheekadii been ma sheege. Haddana wargelinta maamulka. Dhegaystayaal, hawsheena iyo barnaamijyadeennuba weli kama gudbin tijaabadii labaad. Sidoo kale dhegaystayaal, maadaama aan af Soomaaligu in badan ka qaybgelin hardanka iyo halganka hore u marinta afafka, waxaa dhib weyni naga haysataa jaan goynta iyo sixidda xeerarka af Soomaaliga ee ah isku dhigis kala dhigis iyo isku dhigis kala dhigis, iyo kan xarfaha labo laabma sida ma, na, la, ga, ra, da, ba, ma nala garaadba. Taasi awgeed waxaa laga yaabaa inaan si ogaal ah u qorno erayo qoraal ahaan ama dhigis ahaan qaldan si aan dhigista ama dhihidda u toosino. Sidaas daraadeed codsigeena koowaadi waa noo dulqaata, raallina ka ahaada wixii aan qaladno. Haddaad qalad sixiina iyo aragtiyadiina nala wadaagtaana, waan mahadin doonaa, xusina doonaa wanaaggiina, insha Allah. Idinkoo ama adigoo ku mahadsan dhegaysigaaga, waxaa intaas ku eg lalintii 112. Waxaana idinkaga tegayaa kulan dambe oo xiiso leh.